warqad ka soo baxday shir degdeg oo yeeshan xubnaha golaha wasiirada kaasi oo dowladda Soomaaliya ay gabi ahaanba ku joojisay dhammaan cilaaqaadkii iyo xiriirkii amni dhaqaale iyo sidoo kale iskaashi ee u dhaxeeyay Abu Dhabi iyo Muqdisho warqadda ka soo baxday xubnaha golaha wasiirada dabcan waxay si toos ah u taabanaysay arrimo badan oo masiirka dalka ku saabsan isu taga Imaaraadka Carabta dabcan wuxuu saameyn xoog leh ku lahaa arrimaha gudaha Soomaaliya laga soo bilaabo 2017 ilaa sanadka 2026 Imaaraadka Carabtu mar walba waxay faragelinayeen arrimaha gudaha Soomaaliya sidoo kale waxay saameyn ku lahaayeen arrimaha amniga kabka dhaqaalaha ee la siiyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya 12 milyan oo dollar ayaa la aaminsan yahay inay ku kabi jireen kabka dhaqaalaha ee miisaaniyadda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay Imaaraadku bixin jireen mushaaraadka cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamo loogu magac daray police military oo qaabilsan amniga Muqdisho iyo sidaas si lamid ah ciidamada dawladda Soomaaliya qaarkood ayay mushaaraadkooda bixin jireen marka laga yimaado in ay isku fiicnaayeen Xasan Sheekh Maxamuud dib u doorashadiisii 15 May iyo hadda waxaa jirtay dhowr jeer in dadka Soomaaliyeed ay walaac ka muujiyeen faragelinta uu Imaaraadku ku sameeyay arrimaha gudaha Soomaaliya Abu Dhabi waxaa si weyn loogu eedeynayaa in ay maamul goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya ay kala haynayso Somaliland aqoonsiga Israel ay siisay la aaminsan yahay in Abu Dhabi ay dabada ka riixaysay waxaan ognahay in Abu Dhabi sidoo kale xiriir wanaagsan ay la leedahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe in xiriir wanaagsan ay la leedahay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro in sidoo kale xiriir wanaagsan ay la leedahay madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani dhowr jeer Saciid Cabdullaahi Dani Axmed Madoobe iyo Cabdiraxmaan Ciro waxay booqdeen magaalada Abu Dhabi ee caasimadda isu taga Imaaraadka Carabta iyagoo heshiisyo aysan dawladdu ku ogeyn la soo galay sidaas la mid ah Imaaraadku wuxuu ka qarsoon oo miisaaniyadda dawlad goboleedyada ah siiya maamulada Jubbaland iyo Puntland iyo Somaliland ciidamo la yiraahdo BMDF oo ah kuwa Puntland gaar ahaan kuwa badda oo tir ahaan gaaraya 15,000 oo asgari ayuu mushaaraadkooda bixiyaa Imaaraadka Carabta sida ay dad badan aaminsan yihiin dekada berbera ay gacanta ku hayaan dhaqaalahooda oo shirkadda la yiraahdo DP World ee hoos tagta Imaaraadka Carabta ayaa gacanta ku haysa boosaaso sidaas la mid ah Kismaayo sidaas la mid ah marka su'aashaadii guud ee ku saabsaneed Imaaraadka Carabta iyo saameyntiisa guduhu waa intaas dawladda Soomaaliya waxa la soo warinayaa in xogo kala duwan oo soo baxay warqadaas inay timid kadib markii ay heshay aqoonsiga Somaliland oo Israel ay ka heshay xog ayaa arintaas sheegaysa in loo sababeeyay in la buriyo oo guud ahaan cilaaqaadkii loo jiro xog kale waxay sheegaysaa in guni ugoosadkii koonfurta Yemen ninkii la dhihi jiray Abbas waan ilaaday Aydrus oo isagana Soomaaliya soo dhaxmaray oo Sacuudigu si weyn u baadgoobay arintaas maxaynu ka ognahay labadaas arrimood oo isqabtay miyaa warqadan u soo baxday ma arin kale jirta oo dawladda Soomaaliya iyo Imaaraadka hore u dhaxaysay waa maasanta Cumar waxaa jirtay sidaad ka dhawaajisay labada qodob ee soo degdegay oo midna sanadkii 2025 dhamaadkiisii dhacay midna sanadkan 2026 u dhacay in ay isku soo beegmeen waa midkii Aydrus oo la leeyahay wuxuu ka dhoofay garoonka diyaaradaha Cadan Cadde isagoo berber markii hore diyaarad doon kaga yimid magaalada Cadan iyo sidaas la mid ah in Israel aqoonsi inay hesho ay ka dambeysay Abu Dhabi waxaan xog ku helnay 17 bishii 12aad sanadkii aan soo dhaafnay in sargaalka ugu sareeyay hay'adda Mossad ee sirdoonka Israel inuu booqasho ku tagay magaalada Abu Dhabi halka wuxuu kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda isu taga Imaaraadka Carabta iyo laba xubnood oo la taliyaal u ah Cabdiraxmaan Ciro waa meesha ay ka bilaabatay is-araga iyo is-dharaandhirinta iyo in Imaaraadka Carabta iyo Israel ay isku xiraan Somaliland iyadoo dawladdu ay taa walaac xoog leh ka muujinayso oo waliba Xasan Sheekh Maxamuud uu ka cagajiidayo in arintan uu farageliyo ayaa haddana hogaamiyii mucaaradka Yemen wuxuu ka soo raacay dooni Cadan berbera ayuu tagay 2 saacadood ayuu ku sugnaa diyaarad khaas ah ka soo qaaday berbera waxay keentay Muqdisho 1 saacadood ayuu Muqdisho ku sugnaa dawladdu marka waxa laftirkeeda lagu eedeynayaa sidee u ogaan weeday hay'adda duulista rayidka sidee u ogaan weeday nin ajnabi ah oo diyaarad gaar ku yimid inuu Muqdisho 1 saac ku sugnaado oo waliba ninka la aqoonsan yahay wajigiisa la arko muuqaaladiisa la arko in haddana garoonka Cadan Cadde uu ka dhoofo taas ayaa keenaysa ayaa la leeyahay cadaadiska dawladda in intaysa shacabku ku kicin in Imaaraadka xiriirka loo jaro maamul goboleedyada hadda Jubbaland iyo Puntland oo kale waxay ka hor yimaadeen go'aanka dawladda Somaliland aan ku darno saddexdoodaba waa saddexda meel ee Boosaaso berbera iyo sidoo kale Kismaayo meelaha Imaaraadka guud ahaanba
uu ka shaqayn jiray laakiin hadda dowladdu ay sheegtay in laga rokeeyo oo guud ahaanba waxyaabihii uu ka hayay laga joojiyey dowladda soomaaliya sidee ugu dhaqangelin doontaa in guud ahaan dekedahaas si sax ah ay u marto maamulkeeda mase dhici kartaa in imaaraadku uusan ka bixin gudaha soomaaliya oo amarkan xukuumaddu ay soo saartay uu jibiyey cumar marka la eego saddexda maamul oo carabawday ee Jubbaland Puntland iyo Somaliland aan ku hormaro Somaliland sida ay dad badan aaminsan yihiin way adkaanaysaa in imaaraadka laga xadido inuu garoomada diyaaradaha Hargeysa ama Berbera uu adeegsado ama inuu xataa dekada ay gacanta ku hayaan shirkadda DP World ay gacanta ku hayso yani in la xadido inay safar qarsoodiga ku yimaadaan waa macquul laakiin safaradii tooska ahaa dad badan waxay aaminsan yihiin in xogaa uu gabaabsi galayo sababtoo ah adduunka waxaa ka jira nidaam iyo kala dambeyn sharci caalami ah qaramada midoobay waxay diidaysaa faragelin inuu dal kale ku sameeyo inkastoo hadda sharciyadaas la jabiyay oo wax badan ay naga dambeeyaan Puntland marka loo yimaado sidaan ku sheegay Puntland faa'iido weyn ayay ku qabtaa Abu Dhabi ciidamada la yiraahdo BMPF oo ah ciidamada ugu tayada wanaagsan marka laga yimaado ciidamada BSF ayay mushaaraadkooda bixiyaan dani waxaan aaminsanahay inuusan ciidanka mushaaraadkooda hayn sababtoo khilaafka dawladda Soomaaliya iyo dani meel xun buu gaaray sidaas la mid waxay gacanta ku hayaan oo waliba hadda dhismo oo ku socda qayb kamida dekada magaalada Boosaaso oo ay gacanta ku hayaan shirkadan DP World la yiraahdo iyana sidaas la mid waxaa jira garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo banaankeeda dhinaca koonfur marka la eego waxa laga dhisay garoon yar oo macmal ah oo ay adeegsadaan imaaraadka carabta dabcan way adkaanaysaa iyadana in sidii hore ay u sii shaqeeyaan laakiin waxa jiri doona xiriiro hoose iyo si dhuumaaleysi inuu imaaraadku hub ku keeno ama yani bahashi tooska ahayd maalinba diyaaraddu intay Abu Dhabi ka soo tagto ay imaanaysa Boosaaso xogaa way yaraanaysaa laakiin imaaraadku fargelintii wali joojin maayo oo waliba doorashadii Soomaaliya soo dhawo wuxuu rabaa inuu Saciid Cabdullaahi Deni dhiso waana hamigiisa ugu weyn waa arinta hadda loo sababeynay maamul goboleedyadan ay sababta dawladda ula dagaalsan yihiin imaaraadku ay gadaal ku eegayeen maxaa caqabadaha ka dhalan kara marka si dhuumaaleysigaas ah imaaraadku wax walba awoodi karaa inuu hub soo geliyo inuu ciidan kale calooshoodu shaqaystayaala sida Suudaan ka dhacdo kale caqabada ka dhali karta ama ka dhalan karta noocee noqon doonta hadda kor su'aashaas mar waxa la weydiiyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo dabcan si weyn tiimkiisii hore ula dagaalameen imaaraadka carabta wuxuu ku jawaabay hadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhabeeyo go'aanka uu soo saaray oo ah in dalkan aan looga baahnayn imaaraadka carabta hadiiba lacala ay noqoto in si dhumaaleysi dalka ay ku soo galaan waa in si toos loogu dacweeyaa qaramada midoobay iyo sidoo kale Mareykanka si loo tuso imaaraadka carabta in dawlad rasmi ah oo awood leh oo qaramada midoobay hoggaankeeda hadda haysa ay Muqdisho ka jirto laakiin hadii dawladdu ay ku gaabsato un go'aanka ay soo saartay oo fargelinta imaaraadka uu sii socdo waatii ay Soomaalidu ku mahmaahmi jirtay waa jugjug meeshaada joogo waxba ma soo kordhinayso waxaa jirta hadda xog soo bixaysa oo ah in maamul cusub laga garab dhisayo Ciro taas oo ay dawladda qorshaheedu la sheegay inay wado ma dhici kartaa maadaama dawladdu ay hore isugu dayday inay gadu maamul kale ka dhisto si Axmedoobe meesha looga saaro oo hadda imaaraadku saaxiibo dhow ay wada yihiin maadaama Somaliland isla imaaraadku ay saaxiibo dhow yihiin qorshaha dawladdu ma hirgeli karaa in maamul cusub ay ka dhisto dhinaca bari ama dhinaca galbeed ee Somaliland waxaa jiray tan iyo markii Israel ay ku dhawaaqday aqoonsiga Somaliland madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la taliyaashiisu waxay soo jeediyeen laba qodob oo Somaliland hadda lagu cadaadin karo waa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud horta uu laasacaano tago oo uu ka qayb galay xafladda caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye kadibna la hubeeyo ciidanka difaaca waqooyi bari ee ku sugan tuulada Guumeys iyo tuulada la yiraahdo og waxa isku jiraan waa meesha isku orfadhiyaan ciidanka Somaliland waqooyi waxa isku jiraan 32 kilomitir in ciidamada waqooyi bari horta la hubeeyo waa qorshaha koowaad qorshaha labaad oo ka dhawaajisay ee ah in maamul laga dhiso xuduuda ay wadaagaan dawlad deegaanka Soomaalida iyo gobolka Awdal ama gobolka Salal maamulkaasna loo bixiyo Guban oo ay iska kaashadaan beelaha Ciise iyo Samaroon hadii maamulka Guban uu socon waayo in la dhiso maamulkii Awdal State oo markaasi Samaroonka iyo Ciisaha la heshiisiyo dawladdaasna ay dawladda Soomaaliya ay kala shaqeyso Ismaaciil Cumar Geelle in beeshiisa Ciise uu hubeeyo hubkaasna dabcan la soo geliyo gobolka Awdal halkaasna cadaadis laga saaro Cabdiraxmaan Ciro waana qorshaha labaad ama BNB-ga labaad oo dawladda Soomaaliya hadda ay raadinayso saameynta guud ka bixitaanka imaaraadka ee Soomaaliya ay Soomaaliya ku reebi doonto maxaa kamid ah sababtoo ciidan Soomaaliyeed waxa jiro hadda si gaar ah ay u maalgeliyaan imaaraadku
ciidan maamul goboleed waxaa jira iyagana si gaar ah ay u maalgeliyaan oo mushaaharaadkooda ay bixiyaan saadkooda ciidan ay bixiyaan saameyn intee la eg ayay soomaaliya ku yeelan doontaa dabcan dowladda soomaaliya markii ay gaaraysay go-aanka la xiriira in imaaraadka dalka laga buriyo dabcan dowladdu way ogeed in saameyn dhaqaale imaanayso ciidamadii mushaaharaadkooda meesha ay joogaan ciidamada xasilinta caasimadda mushaaharaadkooda la bixiyo yacni waxaa jiray marka kulan dhex maray wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisalaan iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan sacuudi carabiya iyo qatar kulankaasi dabcan waxaa lagu soo bandhigay haddii imaaraadku uu baxo maxay qatar iyo turkiga u hayaan soomaaliya bedelkeeda maxay u hayaan maxay soo gelin karaan xasan sheekh maxamuud ayaa la filayay in 20 bishan uu booqdo magaalada riyaad ee caasimadda sacuudi carabiya sidaas lamida uu baaqdo magaalada dooxa midka dooxa waxaan ogaanay in dooxa ay ogolaatay in ay buuxiso dhammaan boosaskii ay ka baxeen imaaraadka carabta sida in kabkii miisaaniyadda dowladda mushaaraadka ay qaadanayeen dekadaha qaar xataa in lagu wareejiyo sida midda boosaaso iyo midda berbera haddii ay macquul noqoto marka bedelkii dowladdu way haysataa oo awalba way sii ogeed haddii ay imaaraadka buriyaan in saameyntan ay imaanayso guud ahaan intaas ayaan jeclaan ku hakiyo haddii ay jiraan fikrado kale oo dheeraad ah oo laga yaabo in dowladdu ay ku dhaqado ama tallaabooyin kale oo dhinaca Puntland Jubbaland iyo Somaliland dabcan waan arki doonaa haddii Allah uu dalo raalli ka noqdo inkastoo si aad sheegtay dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay soo hadleen oo mowqifkooda ay cadeeyeen haddana bal waxaan arki doonaa imaaraadku inuu dhaqan geliyo go'aankii dowladda ka soo baxay dekadaha berbera boosaaso iyo sidoo kale kismaayo iyana waan arki doonaa bal xaalku sidoo noqdo ciidamada BNPF oo leeyahay mushaaraadkii bay siinayeen imaaraadka carabtu iyagana budgetkoodii iyo siday u helaan miisaaniyadda dowladda kabkeeda si helaan dhammaan waxay ku soo kordha waan arki doonaa Umar insha Allah